بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد maanta waxaan halkan isu soo taagay aniga oo magacayga Khadra Umar Xasan kuna hadlaya bahweynta haweenweynaha dalada nagaad inaan halkan uga hambaliyeeyo maanta lana qaybsado farxadda maalinta loo asteeyay hablaha adduunka oo ay tahay maanta maalintii loo cayimay in laga hadlo loona asteeyo loo aqoonsado inay noqoto maalintii hablaha adduunka waxaan hambaliyo aan la soo koobi karin iyo farxad aan la soo koobi karin la qaybsanaya una diraya dhamaan hablaha adduunweynaha meel kasta ku nool yihiin gaar ahaan hablaha Afrika gaar ahaan hablaha ku hadla afka Soomaaliga gaar ahaan hablaha reer Somaliland waxaan leeyahay hambaliyo waa maalin loo asteeyay inay ka hadlaan amba dib loo milicsado muhiimadda iyo cududda laxaadka ay u leeyihiin habluhu Somaliland iyo dhamaan caalamka oo dhan waxaana maalinta loogu asteeyay inay tahay maalin la isdul taago qiimaha iyo qaayaha ay leeyihiin hablaheena gaar ahaan reer Somaliland iyo meelaha ay ka taagan yihiin bulshada waa maalin lagu qiimeynayo waxqabadkooda hadday tahay waxbarashadooda hadday tahay cududda iyo laxaadka ay la garab taagan yihiin horumarinta iyo runtii maxay haytay jahaynta iyo horukaca haweenka Somaliland hablaha Somaliland baan